السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو روان السلام عليكم صاحب شرفت لي ku xidhan channelkayga waanigu Cabdul Ibraahim iyo fiideo cusub. Fadlan aan ku xasuusiyo haday tahay markii ugu horreysay channelka soo booqatay subscribe saar, fiideogana like saar, gambaleelkana furo saad u noqotid daawadaha ugu horeeya. Waad maasan tahay. Hadaba intaan maanta fiideodan ni wada aan ugu dagay waxaan rabnaa inaan share out siino hal qofna soo dhaweeyno. Hadaba qofkeena koowaad aan rabnaa inaan share out siino channelkiisa waa kan waxa uu qoran Hatim Technology. فضلاً channel kan soo booqo hadaan Soomaali ahaan iscaawin cid kale inaa caawin mayso dhowr jeer waan ugu hadaan Soomaali ahaan iscaawin cid kale inaa caawin mayso beentaba waa maya fadlan kaga farxi walaalka subscriber oo aad u saartayna waxba ku yeeli mayso hadda waxaan rajaynaynaa soo booqo doon qofkeena labaad aan rabnaa inaan soo dhaweeyno channelkeeda waxa uu qoran ama magaceedu waxa weeye Maariya Cabdiqaadir waxa ay tiri walaal anigu waan kugu cusbahay ee soo dhaweey waxaan ku leeyahay welcome mar labaad iyo mar saddexaad ba hadaba inoo bilaabo fiideogeena Funika, funua, bandika, bandua, anika, anua, kanipa. Hadaba saad u ogtihiin social media waxa qabsatay wiil arooskiisa ka ilmeeyay. Ilmadaas oo dad badan si kala u fasirteen, hadaba hadal yaan ugu daalin ila soo daawo fiideoga. saadooda aragtaan ba aroosku waxa uu ilmeeyay isagoo arooskiisa la joogo oo xaaskiisa hor taagan tahay oo aroosanay isagoo hor taagan ayuu ilmeeyay ilmadaas ka timina aad arkayseen dad badan ayaa si kala u fasir dadka qaar waxay dhaheen waa xawiilku mu farxo muxuu loo ooyaya dadka qaar waxay dhaheen jacayl iyo farxad ayaa ka keenaysa hadaba waxa uu la ilmeeyay isaga ayaa inoo sheegi doona waxaana laga soo qaaday wareesi fiideoguna waa kan ila soo daawo anigana waxaan sidii kara waxaan la ooyay wax kala ma ahan markaan arkay mashxarada iyo qiimaha ay dadkayga familka ah iyo asxaabteeda iyo dadkii waxa weeye meeshii aan ku dhiganay arooska quruxda badan ka soo qayb galay say waxay ugu qaban qaabiyeen markaan arkay darteed baa ilma iga timid inaan hantay qofka aan jeclayn oo dunida ku lahaa iyo inaan dareemay inaan qofna wax iga hakran sidii aan ku noqon lahaa qoys jira oo jooga hadaba saadooda aragtaan wiilku waxa uu yiri ilmadan iga timi waxa ay keentay arooskayga ama waa dareen ku saleysan arooskayga aroosi soco hadda dabcan waa aqal gashay himiladaadi waa gaartay sidee dareemaysaa adiga iyo hadda xaaskaagu wallahi alxamdulillah ilaahay baa mahad iskale wax culays iyo wax maaragtay dhiba midna ma dareemayno aniga iyo waxa weeye xaaskayga labaduba qof walba oo caqli saliim leh oo waxa weeye caqligiisu ku filan waa dareemi karaa si fiican oo hufan qofku fikir waa dareemi karaa oo intaas waxay ka turjumayso inay saxmaana ka turjumayn marka aad baan farxad u dareeminaa hadaba hadda waxaan filayaa inaad fahanteen waxa ka keentay ilmadaasna ay ahayn ilmo murugo ama wax si kale ku timi ay tahay farxad ama jacayl hadaba fiideo kale oo laga soo habeenka arooskiisa ila soo daawo dad badan ayaa challenge ku soo sameeyay ma garanin anagu sababta intaas ayaan soo bandhigay fadlan channel ku cusub tahay subscribe saar hadaad hore u saarteen aad baad maasan tahay fiideogana ka ilaawin like una share gaar asxaabtaada see you next video kwa penzi lako tamu mama nakiri